السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له يو ميلا جوتان بوائد سلامي، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. waxaan rabaa insha Allah su'aal soo noqnoqotay inaan ka jawaabno. Su'aashaas waa ciida sidee loo tukan doonaa maadaama oo guryaha la joogo. Dadku waxay barteen inay imaam uu tujiyo ama meel bannaan lagu tukado ama masaajida. طبعا xil weyn de marka dadweynaha kama saareen qaabka loo tukanayo loo hogaaminayo salaadan imaamkaas hogaamin jiray laakiin salaadani waa salaad u baahan kayfiye gaar ah iyo qaab loo tukaday leedahay sideen marka uu tukana insha Allah taala salaadu waajiba mise waa sunne طبعا culimada qaar waxay waa sunne muakkada qaarna waxay waa waajib marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan xitaa daahir kayn inuu yiri soo baxa dumarkii aan xijaab haysanin inuu yiri kuwa kale xitaa hasiyaan dharka ka soo tobal caareystaan gabdhihii aan la soo saari jirin la yiri banaanka loo soo bixiyo ha ka soo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunna alla soo qabaysto dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato barfuun iyo wixii cadraa la marsado yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobaya marka intaan wali faatixa la aqrinin ragcada hore markii salaada la galo Allahu akbar la yiraahdo yaa 7 jeer la oranaya Allahu akbar الله أكبر سبحان الله الله أكبر 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 أكبر واترسنا يسات الضبجر كدب بعد فاتحة بالله كدب من الصورة بعد قدر إن شاء الله سيد السنة هي طورنا الصبح اسمات تدمنا على تاء لو أقرأ سورة الغاشية أما الصورة الله صورة دي إلهي كوافجيو آيات قدر يسا أو تقان ragcadii labaad markii intii la sujuudo la soo kaco oo Allahu akbar soo istaagta baad hadana bilaabi Allahu akbar 5 jeer Allahu akbar subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر شنجر بالدهيا كدب بعد هذا فاتحة بالله كدب بعد سورة تقان كدري كدبنا صلاة السلاسة كل مان والله برك عضاد وهل التحيات كل ما ينسى صلاة مركز لقبه خطبة أياجرتي عيد waxay khilaafsan tahay jumcada waxa horeysa khudbada salaaduna way dambaysaa laakiin ciida waxa horeeya salaada kadibna khudba ayaa loo istaagaa khudbadu waajib ma aha waxaana laga garanayaa rasuulku inuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii rabaa ha dhageysto qofkii rabaana ha iska tago sidaas daraadeed inay la isbaraarujiyo oo maadaama dadku de wacdi badan iyo carabi toona u wada sahlanayn luqadii taqaan in la isku baraarujiyo hal aayad iyo hal xadiis la isku baraarujiyo ayaa haboon insha Allah taala waxaan rajaynayaa ilaahi subhanahu wa taala baan baryaynaa inuu wabaagan iyo dhibaatadan inaga kor qaado wala isu imaatinkii iyo damaashaadkii iyo maaragtay caafimaadkiina alla inoo soo wada celiyo jazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh